waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda soomaaliyeed aad baan idin salaamaynaa waa mar kale iyo channelkeenii dhoolcase oo MW oo maantana idin soo bandhigi doona scholarship kaasoo uu bixinayo amba bixiyo sanad walba dalka ruushku fursadaasoo u ah ardayda soomaaliyeed fursad weyn oo qaali ah taasoo arday walba oo Soomaaliya uu ka faa'iideysan karo marka scholarship-kaas ayaynu u guda geli doonaa si aynu faahfaahin dheeraad ah uga bixino si idinkuna sidoo kale ayd uga heshaan faahfaahin dheeraad ah oo aydu hadduu alla idmo aydu u fahmi kartaan sida ugu wanaagsan marka waxa aynu tegaynaa inuu ku bilaabeynaa website-kiisa waxaynu tegi doonaa googlaha kadibna waxa aynu ku qori doonaa website-kiisa officialka sidii hore aynu soo sheegnay waxaynu googlaha ku qori doonaa website-ka scholarship-kaas oo study.ru waa studyinrussia.ru waxa uu inoo soo saarayaa intaas website se waxa aynu ka tegaynaa kaas Englishta waxa uu toos inoo geynayaa homepage-kii website-ka haddaba website-kii aynu galnay homepage-kiisu waa ka noocan u eg marka waxa weeyaan website-kan haddaba yaa iska leh website-kan waxaa iska leh waxa uu ku yidhi halkaa ugu sarreeya ayuu kugu qeexaya waxa iska leh wasaaradda sayniska iyo waxbarashada sare ee federaalka Russia marka website-kan waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee dowladda Ruushka ayaa website-kan iska leh arday walbana halkan ayaa uu ka codsan karaa oo hadday tahay waxbarashada scholarship-ka hadday tahay waxbarashada kale uu lacagta iska bixinayo haddaba website-kani waxa uu leeyahay guidelines amba waxa uu ku tusinayaa hababka loo xareysanayo waxa uu sidoo kale ku sharaxayaa nolosha ruushka sidoo kale waxa uu ku sharaxayaa waxyaabo badan oo dheeraad ah marka waxaynu ka bilaabi doonaa sharaxaadda website-kan iyo waxyaabaha uu ka sheekeynayo website-kan intaynaan u guda gelin habka loo xareysanayo weliba inagoo ka taabanayna meelaha ugu muhiimsan ee website-kan uu leeyahay inagoo kusii talax tegayn waxaynu ku horeynaynaa horta inta aynaan meel kale tegin aynu homepage-ka website-ka sidaa u taaganahay waxa aynu tegaynaa Russia marka aynu sidaa u tagno waxa aynu kasii tegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo intaas iska daa kan waa faa'iidooyinka Russia haddii tusaale ahaan oo kale aad waxbarasho u tagtid aad ka helaysid waxa weeyaan wax saa u sii muhiima maaha qof walba waa wax iska garan karo se waxa aynu halkan ka tegaynaa Russian University in World University Ranking oo ah waa top Russian University in World University Ranking waxa weeyaan waxa aynu tagnay waa jaamacadaha dalka Ruushka ku yaala kuwooda ugu wanaagsan ee adduunka ayaynu eegaynaa ARW waxa weeyaan waxa loo soo gaabiyaa Academic Ranking of All Universities waa machad uu laga leeyahay dalka China kuwaas oo taas oo ay qiimeynayso amba sidoo kale ay qiimeyso sanad walba jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan marka machadkaasi jaamacado ayaa uu soo saaray sanadii ugu dambeysay 2019ka sidoo kale oo dalka Ruushka laga leeyahay sidoo kale kana
waxa weeye waa organization amba waa urur. kan kalena waxa weeye QS World University Ranking. waxa weeye waa organization laga leeyahay dalka Ingiriiska oo sidoo kale isna sidii macahadkii hore u shaqeeya oo isna waxa uu soo saaraa uu soo bandhigaa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan, weliba iyagoo ay ka qayb qaadanayaan jaamacadaha dalka Ruushku. sidoo kale THE waa isna waa website, isna waa jariirad iyaduna si weekly ah usoo saartaa oo dalka Ingiriiska sidoo kale laga leeyahay, oo iyaduna ka sheekeynaysa qiimeynta jaamacadaha adduunka, soo bandhigta kuwada ugu wanaagsan. marka ka ugu horeeyaynu eegaynaa macahadkaas laga leeyahay dalka China, bal waxaynu eegaynaa jaamacadaha dalka Ruushka ku yaala kuwada ugu wanaagsan kuwa uu ku sheegay. waynu ku dhufanaynaa, kadib waxa uu inoo soo saarayaa wuxuu ku yidhi academic ranking of all universities. waxa weeyaan jaamacadaha adduunka halka jaamacadaha Ruushku kaga jiraan, weliba adugu dhowr buu kasoo qaadanaya kuwooda ugu wanaagsan iyo halka ay kaga jiraan. waa kan wuxuu ugu soo horeysiiyey Lomonosov Moscow State University oo 2012kii halkaasi taagnay 80, 2013kii 79, mid walba halkay taagan tahay adeegsa sanadeedii. sidoo kale 2019kii waxay taagneyd 87 amba 87 ay taagneyd 2019kii. sidoo kale tanna St Petersburg State University tanna mid walba halkay taagneyd waa sanadii 12kii, sanadii 13kii, 13dii, ka sanad walba. sanadii ugu dambeysay qiimeynta lagu sameeyay waa 2019 amba 19kii. waxay ku jirtaa 301 ilaa 400. waxa weeye jaamacadii inta gaarsiisna ayay ka mid ahayd oo ay meelaha kaga jirtay 301 ilaa 400 bay udhexaysay. kuwan kalena waxay soo galeen sanadihii ugu dambeeyey, sida halkan ay kugu shaacinayay. halkan waa 2018 aba 2019. jaamacadahaas ayaa ka mid ah mid walba halka ay kaga jirto. taasna National Research University High School of Economics waxay soo gashay 2019, sanadii ugu dambeysay ay ka mid noqotay jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan. todobadaas waa isku mid, sanadii ugu dambeysay ay soo wada galeen kuwooda ugu wanaagsan. kuwa kalena sanado kale oo ka duwan ay soo galeen. marka waa kuwa jaamacadaha ugu wanaagsan ee macahadkaas uu soo bandhigay. marka aynu eegayno haddaba halkan sare waxaa kugu yaala adigoo ka qiimeynaya by field-ka iyo subjectiga aad xareynayso. tusaalahaan waxaynu eegaynaa subjectiga aad xareynayso adigoo ku qiimeynaya jaamacadda ku wanaagsan. tusaale ahaan mathematicska hadda waxaynu toos ugu dhex jirnaa jaamacadihii ugu wanaagsanaa dalka Ruushka ee uu soo bandhigay macahadka laga leeyahay dalka China. iminka waxaynu toos u tagnay inagoo ku saleynaynaa subjectiga aad doonayso jaamacadda ku wanaagsan. tusaale ahaan ARWU mathematics xisaabta tusaale ahaan waxaa ku wanaagsan wuxuu ku yidhi Lomonosov waxaa ku wanaagsan buu ku yidhi Lomonosov Moscow State University. kuwaasa ku wanaagsan buu ku yidhi intaasoo jaamacadood. sidoo kale physics-ka waxa uu yidhi waxaa ku wanaagsan jaamacadahan, waa jaamacadii dalka Ruushka ku yaalay qeybta physics-ka waxaa ku wanaagsan buu ku yidhi waa jaamacadaha Lomonosov Moscow Institute, Novosibirsk State University, National Research, St Petersburg iyo intaas ayaa ku wanaagsan. waa ka mid walba ciwaan ayaa uga dhigaya subjectigeeda. kan electrical and electronic engineering-kana waxaa ku wanaagsan intan jaamacadood nationalkii National Lomonosov
Etimo National University. sidoo kale materials science and engineeringkana waxaa ku wanaagsan jaamacadaha Lomonosov ayaa hogaaminaysa, UFA, kuwa Moscow, the National University of Science, Etimo National University. chemistry-gana jaamacadan ayaa hogaaminaya, mid walba subject walba dusha ay kaga qorantay earth science-kii mar walba badanka waxaa hogaaminaya labada jaamacadood ayaa ugu wanaagsan dalka Ruushka. mechanicalkii mid walba ciwaan ayuu uga dhigay subjectiga ay hogaaminayaan jaamacaduhu. science and technology jaamacadahana hogaaminaya. marka waa kaas waxaynu u eegaynaa inagoo subjectiga waa facultyga aad xareynayso amba subject amba xiisada aad xareysanayso eed ku eegaysa jaamacadda u wanaagsan. eeg waxaynu imikana ka eegi doonaa organizationka ingiriiska laga leeyahay qiimeynta uu ku sameeyey jaamacadaha Ruushka kuwooda ugu wanaagsan ayaynu ka eegaynaa. sidoo kale sidii kii hore ayaa uu sameeyey Lomonosov uu soo geliyey kaalinta koowaad, kaalinta labaadna jaamacaddii iyaduna ku xigta marka hore St. Petersburg State University. marka waxa ay la mid tahay organizationkana macadkii hore sidii hore uu ku qiimeeyey ayuu kana ku qiimeeyey. marka aad arday aad sameynayso inaad ogaatid jaamacadda xiisada aad xareynayso amba facultyga aad xareynayso jaamacadda ku wanaagsan, waxa aad tegaysaa ranking by subjects ayaad tegaysaa. kadibna ma engineering baad xareysanaysaa, ma sociology baad xareysanaysaa, ma international relationships. marka jaamacadihiiba aad ka eegaysaa bartaas ta kugu wanaagsan. qaybtaasna waxay ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan dalka Ruushka. sidoo kale inagoo ku saleynaynaa amba ka eegaynaa amba u eegaynaa jaamacadaha dalka Ruushka sidii ugu kala wanaagsan xiisadaha aynu doonayno. qaybta koowaad sidoo kale waxa aynu ka eegaynaa testimonial waxa weeyaan waa barta ay kusoo bandhigaan arday ka mid ah ardaydii wax kusoo baratay dalka Ruushka, iyagoo arday walba halka uu kasoo jeedo iyo magaciisa kusoo bandhigaya. marka waxaynu ku dhex aragnay anagoo baadhayna sidoo kalena baadhis ku sameynayna bal wax arday Soomaali ah inuu ku jiro ayaa waxaanu ku guuleysanay aanu ka helnay arday Soomaali ah oo ka socda dalka Kenya oo la yiraahdo Xuseen Cabdinuur Cabdi Muhammad oo Kenya ka socda oo jaamacadda waxa uu ka qalin jebiyey UNN. sidoo kalena qaybtaasna intaas ayaynu ka eegnay. qaybta labaad study in Russia oo waxbarashada aad kusoo baranayso dalka Ruushka. waxa aynu ku horeysiinaynaa general informationku wuxuu ku leeyahay Russian universities over several types of education. firstly, there is a full-time attendance when you need to be present. marka waxa uu ku leeyahay inta wuxuu ugu soo koobayaa oo sidoo kalena kaaga sheekeynayaa haddii aad ku guuleysato scholarshipkan, sidoo kalena imtixaanka laga qaadayo aad ku guuleysatid oo dhaaftid, waxaad helaysaa sidoo kalena ka furan jaamacadaha dalka Ruushka oo ardayga u bannaan in uu 3 waqti amba 2 waqti dhigan karo, in uu full time waqti dhammaystiran uu dhigan karo, sidoo kale in uu habeenkii dhigan karo, sidoo kale in uu qayb ka mid in uu part time dhigan karo amba half dhigan karo. marka adigu waa gelin oo kale ayaa uga jeeda isagu. marka saddexda qaybood ayaa muhiimadda uu halkan kusoo koobayaa.
waxaynu tegaynaa haddana universities jaamacadaha dalkaas universities in Russia. halkana waxa uu kusoo koobaya oo kaga sheekeynayaa in dalka ruushka uu leeyahay 766 jaamacadood oo ku kala yaala 82 gobol oo ka bilaabaya gobolka la yiraahdo Kaliningrad ilaa ku dhamaada gobolka kale la yiraahdo Vladivostok. marka 766 kaas jaamacadood ayuu leeyahay sidoo kalena bixiya jaamacadahaasi waxa ay bixiyaan programyo ama faculty-yo kala duwan sida medicine-ka, philosophy-ga iyo technology-ga iyo humanities-ka iyo waxyaabahaas ay bixiyaan sidoo kale jaamacad walbana ay leedahay shuruudaheeda gaarka qaybtaas ugu muhiimsan sidoo kale waxaynu tegaynaa programs. okay halkana programs marka aynu ku dhufano waxa uu ina keenayaa bartan ama home page kan educational programs study in Russia.ru lists 3600 education programs offered by best Russian study universities. wuxuu ku yiri halkan jaamacadaha dalka Ruushka waxa ay soo bandhigayaan 3600 oo program ama faculty oo ay bixiyaan jaamacadaha dalka Ruushka. haddaba ay ka mid tahay sida bachelor degree-gii master-tii PhD-gii iyo dhankii clinical-kii caafimaadkii. marka waxa aynu halkan waxa lagu soo bandhigayaa jaamacad walba waxaad ka searching gareynaysaa hadday master tahay waxaad doonayso inaad xareysato hadday tahay degree sidoo kale hadday tahay PhD jaamacaddii bixinaysay sidoo kale luqadii aad ku doonayso inaad ku dhigatid. tusaale hoos baad usoo wadaysaa waxaad tegaysaa bartan halkan ayaad ka searching gareynaysaa amba aad ka baadhanaysaa waxaad doonaysid inaad soo baratid tusaale ahaan degree-ga aad doonaysid inaad xareysato waa master. field of study qaybta ayaad doonaysid inaad kasoo barato tusaale ahaan technology. computer technology ayaan doortay sidoo kale subject-iga aan doonay inaan kasii barto amba qaybta aan doonay inaan kasii barto waxaan kasii baranayaa tusaale ahaan software engineering. mode of study ma full time baan doonaysaa mise all tusaale ahaan full time baan dooranayaa. duration of study intee ayaad dhiganaysaa ma 4 year baad dhiganaysaa oo waxa weeyaan oo qiyaasaysaa inta laba sano ayaan dhiganayaa waxa weeye waxaad eegaysaa mastertaada inta lagu bixiyo hadday master tahay haddii degree tahayna inta lagu bixiyo 4 sano waxyaabahaas kadib waad dooranaysaa. language of inkastoo taas sare aanay muhiim ahayn oo maxay ahayday jaamacad walba iyadu ay waqti gaar ah ay ku bixinayso haddii degree-ga ay tahay 4 sano hadday tahay masterta 2 sano aanay intii aad dooratay aanay mar walba ku qaadayn si haddana waxaa muhiim ah inaad ku baadhid. halkana waxaad tegaysaa language of instruction luqadda aad doonaysa inaad kusoo barato tusaale ahaan English. cityna waxba magaaladaasi dooran haddaad jeceshayna wada ka dooran karta magaalada jaamacadda magaalada aad doonayso inaad wax kasoo barato jaamacadaha ku yaala ee bixinaya faculty-ga aad raadinayso. marka imika all baan yidhi waa goboladoo dhan marka find program ayaan odhanayaa waa ebad programkan aan daydayo ambaan xareysanayo jaamacadaha bixinaya. waxa uu
waxa uu soo saaray big data solutions or direction informatics and computer technology degree master degree language of instruction oo ka master degree-gan xariisanayay Englishtii waa 2 sano waa full time sidoo kale free education buu ku yiri maaha wax scholarship ah ma bixinayaan waan iska dhaafaynaa ka labaad jaamacadda labaad ayaan u gelaynaa master degree waa Russian English labadaba way ku bixinayaan luqadda waa 2 sano durationka 2 sano aad ku dhiganaysaa mode of study waa full time waxbarashada maalintii oo dhan adu saacado dhameystiran aad dhiganaysaa availability of free education helitaanka waxbarasho bilaash ah iyo jaamacadda bixinaysa yes haba lagu halkan haddii aad doonayso inaad lacagta iska bixisidna waa 320,000 rubi per year sanadkii intaas ayaad bixinaysaa oo u dhiganta 5,000 ilaa adu $5,000 ay u dhigantaa 320,000 rubi per year haddii aad tusaale ahaan oo kale lacagta iska bixinayso faculty-ga aad raadinayso inaad xareysato halkan ayuu kugu soo qorayaa lacagta aad bixinayso haddii waxbarasho bilaash aad raadinaysidna yes iyo no baa kugu soo qoraya haddii availability of free education helitaanka waxbarasho bilaash no kugu soo no jaamacaddaas ma bixinayso wax scholarship ayuu ku leeyahay wasigaba sidoo kale tan kale ayaan u tegaynaa tan kalena way bixinaysaa sidoo kale master degree English qaabkaasna waa qaabka loo baadho amba waa halka laga soo baadho programka aad doonayso inaad xareysato jaamacadda bixinaysa ayaad halka ka baadhaysaa kadibna waxaad ku noqonaysaa halkii study in Russia 5 steps to apply in Russian universities halkana waxaynu ka arkaynaa xog muhiim ah waa 5 tallaabo ee aad ku xareysanaysay jaamacad dalka Ruushka marka waa 5 steps waa 5 tallaabo oo kaliya ayaad qaadaysaa si aad u xareysato jaamacadaha dalka Ruushka maxaan ku bilaabayaa choose program and university waa in aad soo doorataa programka amba faculty-ga aad xareysanayso iyo jaamacaddiisa tusaale sidii markii dhawaato halkii aynu ka baadhinay programkii markaad soo baadhatid sidoo kalena luqadii aad ku soo baadhatid aad hesho jaamacaddii bixinaysay meel ayaad ku qoranaysaa jaamacaddaas iyo programka tallaabada labaadna waa learn about financing and scholarships waxaad wax ka ogaataa jaamacaddaasi scholarship ma bixinaysaa sidoo kale ma qaybta waxbarashada lacagta ayaad xareysanaysaa waa tallaabada labaad sidoo kale tallaabada saddexaad prepare your document package waa in aad diyaarsataa documentska amba waraaqaha ay jaamacadda aad xareysanayso ay ka doonayso sidoo kale tallaabada afraad waa in aad martaa tallaabada kala xulashada ardayda ku guuleysatay scholarship-kan hadday tahay imtixaan laga qaaday hadday kale tahay system kale ay marayaan sidoo kale tallaabada shanaadna waa inaad invitation heshaa and apply for student visa waa in aad heshaa aqbalaadii sidoo kalena aad xareysataa fiisihii dalku galka 5 tallaabana waa 5 tallaabo ood ku xareysanayso jaamacadda dalka Ruushka waxaan sidoo kale qaybtan scholarshipska ayaynu wax ka eegi doonaa sidoo kalena ka taataaban doonaa waxa uu ku leeyahay dalka Ruushka dowladda Ruushka scholarshipkeedu waxaa xareysan kara dadka u dhashay dalka Ruushka ee ku nool dalka dibadiisa sidoo kale dadka qaxoontiga ah ee adduunyada ku kala nool sidoo kale way xareysan karaan iyagoo si siman u xareysan kara oo ay la mid yihiin dadka Ruushka u dhashay ee dalalka kale ku kala nool haddaba markay xareystaan dadkaasi imtixaan ayay galayaan imtixaankaas marka ay ka gudbaan ay scholarship-ka ku guuleysanayaan markaas imtixaanada qaar waxaa ka mid ah uniform state examination imtixaanka AGE
la yidhaahdo badanka dalalkeena soomaalida laguma dhigto oo imtixaanaadka lagama qaado si imtixaanaad facultyga aad xariista ama fiilka aad xariista ku saabsan ayay kaa qaadayaan kadibna haddaad ku guulaysatid way ku abaalmarinayaan. sidoo kale waxa uu ku leeyahay 2009 eg dowladda ruushka waxay bixisaa sanad walba scholarship ay dowladdu maalgelinayso. tusaale ahaan 2019 waxaa la guddoonsiiyey la abaalmariyey 15,000 oo scholarshipkaas ayaa ardayda lagu abaalmariyey. haddaba halkan wuxuu kaaga sheekeynayaa dowladdan ruushka scholarshipkeedu maxay kaa kafaalad qaadaysaa, sidoo kale maxaanay kaa kafaalad qaadin aanay mas-uul ka noqonayn. tusaale free tuition for the entire duration of the chosen program, fiiga jaamacadda waqtiga aad ku guda jirtid programka aad xareysatay waa ay kaa kafaalad qaadaysaa jaamacaddaasi dowladda ruushku. sidoo kale maintenance allowance waxa weeye kharashaad yaryar oo aan saasna u badnayn oo u dhiganta $22 intaad ku guda jirtid waxbarashada. sidoo kale haddii ay jiraan dalxiisyana dowladda way kaa kafaalad qaadaysaa dalxiiskaas. waxyaabaha kaa kafaalad qaadin waxa weeyaan waa socdaalada aad sameynayso kharashaadka ku baxaya, sidoo kale kharashaadka aad ku noolaanayso, sidoo kale health insurance caafimaadka insurance-ka kharashkeedana ma kafaalad qaadayso iyadu. marka qeybta inta halkaa ku qoranna kaama kafaalad qaadayso, intana way kaa kafaalad qaadaysaa. sidoo kale qeybtii study in Russia ayaynu weli ku guda jirnaa. summer schools iskuullada waqtiyada samarka ah la dhigto ayaynu wax ka tataaban doonaa. sidoo kale haddaba summer schools waqtiyada samarka waxbarashada la dhigto waa maxay? waxaa la yidhaha waa short certificate awarding programs, waa programyo gaagaaban oo ardaygu ku baran karo 2 week 3 week ilaa 8 week inta u dhaxaysa, kuwaasoo badanka la helo bilaha bisha May sanad walba, sidoo kale bisha September sanad walba. ardaygu wuu xariisan karaa sida gaagaaban ee samarka la dhiganayo. ardaygu waxa uu ka tegi karaa si uu u xariisto koorasyadaas. waxa uu ka tegaya horta halkan ayuu tegayaa use our search service. short term and summer schools waxa weeyaan waa koorsyadii gaagaabnaa ee waqtiga samarka la dhiganayay. halkan ayaad ka dooranaysaa, isagu mar walba ku dooran yahay waxbaa taaban. model of study waqtiga sida aad ku dhiganayso koorskan ma full time waqti dhammaystiran ma half time mise aduu part time ban yidhi. languagekana waa English, cityna all city waan ku daynaya. markaad xareysanayso amba aad daydayayso course gaaban oo free ah, halkaasaad eeganaysaa sidii coursyadii hore aynu eegaynay. availability of free education, yes, kuwa ay halkaa kugu qoran tahay ayaad tixraacaysaa, aad dooranaysaa. kaasina waa ka marka waxaan ku noqonaynaa halkeennii. waxyaabaha marka aad xareysanayso coursyada samarka waxyaabaha laga qaaday waxaa kamid ah online questionnaire, su-aalo yaryar oo questionnaire ah oo online lagaga qaaday. sidoo kale CV-gaaga ayaad gudbinaysaa. sidoo kale motivation letter, waraaqda aad kaga sheekeynayso sababahaad u dooranayso inaad programkan aad xareysato, sidoo kalena aad usoo barato fiilkan aad dalbanayso iyo xiisaha aad u qabtid. kaasina waa kaas summer schoolsku. weli waxaynu ku guda jirnaa qeybtii study in Russia. waxaynu hadda teginaa preparatory department. waxa weeyaan qeybtaas waxay ka sheekeynaysaa waa koorsyo aan dhammaystirnayn, kuwaas oo ku noqonaya kaabis inta aanad facultygii aad codsatay aanad u gudagelin. tusaale waxa weeyaan waxaa ka mid ah luqadda ruushka in aad sii barato inta aanad facultyga aad xariistay aanad gelin. sidoo kale waxaa ka mid ah bachelor degree-ga dalbatay inta aanad gudagelin. waxaa sidoo kale jira
bachelor aan dhamaystirnayn oo half ah oo base ku noqonaya amba ku caawinaya si hadhow toole aad bachelor degreegaas aanay wax kugu adkaada iyo caqabado ka hor yimaada aanay dhanka waxbarashada aanad ku arkin bachelor degreegaas. sidoo kale master degreegana half pre master waxa la yidhaahdo oo maxay ahayd preparatiga kamida koorsada baseka ku noqonaya ee ku kaabaya intaanad masterta gudagelin ayaa jira. marka saddexdaas bood dhigan karta waa crash courses baa la yidhaahdaa inta aanad gudagelin waxbarashada aad dalbanayso aad ku haminayso inaad baratid bachelor degreega amba masterta amba phd da ayaad sii baranaysaa si ay hadhow ku noqoto kaabis amba base ay ku noqdaan ayaad kuna u baranaysaa. marka si aad u dooratidna amba aad isku diiwaangelisid crash courseskaas waxaad tegaysaa bartaas waxaad tegaysaa use our search engine. sidoo kale waxaad kasii tegaysaa marka uu halka kusoo saaro halkii uu ku dooran yahay type of additional oo ka pre-bachelor program pre-master program Russian luqada Englishta short terms kaaskada saddexda sare dooran kartaa. waxa weeye waa koorsiyada crash courseska ka caawinaya amba ku noqonaya base inta aanad facultyga dooranaysay amba aad jeclayd inaad barato intaanad xareysan ayaad kuwan sii dhiganaysaa si ay ku noqdaan base hadhow kaa caawina si wanaagsan aad u fahamtid bachelor degree amba masterti. kadibna halkii availability free education ayaad eegaysaa kuwa waxbarasho bilaash ah jaamacadaha bixinaya kaasina waa kaa inayd fahanteen ayaan idin rajeynayaa. sidoo kale qaybtan study in English study in Russian English qaybtan waxa uu ka sheekeynaya waxbarashada aad xareysanayso inaad kusoo barato luqad English ah. si aad ugu xareysato luqad English ah waxa aad dooranaysaa waxaad tegaysaa program halkii aad ka search gareysa programka halkan ayaad ka dooranaysaa hoos ayaad usoo wadaysaa si aad u dooratid luqada Englishka inaad wax kusoo baratid language of instruction. marka halkaasaad ka dooranaysaa markaad programka xareysanayso haddii aad jeceshahay inaad luqada Englishka kusoo barato kaasina intaas ayaa uu ka sheekeynayaa uu halka kusoo koobayaa tuition fees in Russia waxbarashada lacagta ah ee dalka Ruushka aynu sidoo kale wax ka eegi doonaa. halkan su-aasha ugu horeysa oo ku weydiinaya waxa weeye how much does it cost to get a bachelor degrees in Russia kharash intee leeg ayaa kugu baxaya in aad bachelor degree aad kusoo qaadato dalka Ruushka. wuxuu ku yiri after completing 4 years undergraduate program student receive a bachelor degree and diploma let's continue for study. bachelor degree costs approximately waxa uu ku leeyahay waxa ay kugu kharash waxa kaaga bixi kara bachelor degree-gaaga $3,000 iyo $385 ilaa inta u dhaxaysa $3,000 iyo $690. marka $3,000 ilaa $3,300 ilaa $3,600 ayaad sanadkii ku dhiganaysaa bachelor degree-gaaga markaad xareysanayso waxbarashada lacagta ah. sidoo kale the minimum cost is sidoo kale wuxuu ku yiri lacagta ugu yar ee aad ku dhiganayso waxbarasho bachelor degree ah oo dalka Ruushka ah waxa ugu yar buu ku yiri $1,860 sanadkii. maximum sidoo kale waxa u badan $12,000 sanadkii inaad ku dhigato. marka waxa bachelor degree-ga markaad lacag kusoo baranayso
waxbarasho lacageed qaybta bachelor degree-ga waxay lacagtu u dhaxaysaa sanadkii 3,000 ilaa 3,800 ilaa 3,600. minimumka waxa ugu yar lacagta 1,800 waxa ugu badan 12,000 oo dollar waxbarashada bachelor degree-ga. sidoo kale su-aashan kalena wuxuu ku yidhi how much does it cost to get a master's degree in Russian University. markaad soo baranayso waxbarasho lacageed ee qaybta masterta ah dalka ruushka kusoo baranayso kharash ahaan waxaa kugu baxaya 3,600 ilaa 4,000 sanadkii. sidoo kale minimumka ugu hooseeya waxa weeyaan 9,000 ilaa 950 dollar ayaa lacagta ugu hooseysa ee master kusoo baran karto sanadkii. sidoo kale maximumka waxaa ugu badan 6,000 oo dollar sanadkii. marka inta u dhaxaysa 3,600 ilaa 4,000 inta u dhaxaysa ee sanadkii kusoo baranaysa masterta. taasina waa kharashkii masterta. sidoo kale qaybtana waxa ku leeyahay su-aashana how much does a postgraduate study course in Russian University. tana waa kharashka kugu baxaya markaad PhD soo baranayso. lacagta kugu baxaysa waa waxbarashadii lacagta ayaynu halka kaga sheekeyna aynu wadnaa. PhD-da sanadii waxa kugu baxaysa 4,000 ilaa 4,300 sanadii. waxa ugu yar $1,000 waxaana ugu badan 6,000. sidoo kale marka aad soo baranayso crash courseski amba courseski baseka ku noqonay ka caawinay intaanad faculty aad xareysanaysa aanad baran sida luqadii ruushka bachelor degree aan dhamaystirnay master aan dhamaystirnay waa crash courseski waxaa kugu baxaya an average of 2,000 waxa weeyaan 2,310 dollar ayaa coursekii kugu baxaya. sidoo kale markaad summer schoolska waxbarashada amba courseska waqtiyada samarka ah ay dowladani bixiso aad lacag kusoo baranayso waxaad kusoo baranaysaa 690 dollar ayaa coursekii lagu xisaabinayaa. qaybtaasna waxaynu kaga sheekeynay waa qaybtii waxbarashada lacageed oo ardaygu kusoo baranayo lacagahan dalka ruushka ah. hadday noqoto bachelor degree, hadday noqoto masterta, hadday noqoto preparatory programs oo crash courseska ah, hadday noqoto sidoo kale summer schools waa lacagaha kugu baxaya markaad waxbarashooyinka aad soo baranayso.